Assalaamu calaykum. Muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay soo koobidda iyo korfaynta buugga Animal Farm amaba beerta xayawaanka iyo qodobada laga qaadan karaba. Sidaad u ogaatiin markaa nala soco. Buuggan waxa uu soo baxay ku dhawaad nus qarni ka hor. haddana dhacdooyinkiisu waa qaar si cad uga muuqda siyaasaddeena maanta waxaana lagu tiriyaa boqolka sheeko-faneed ee adduunka ugu fiican. Buuggan intiisa badan wuxuu ka warramayaa arrimo siyaasadeed, gaar ahaan siyaasaddii ay adeegsanayeen madaxdii hogaaminaysay kacaankii Oktoobar 1917 ee dalka Ruushka. Qoraagu wuxuu adeegsanayaa magacyo xayawaan, balse macno ahaan u dhigma madaxdii dalkaas hogaaminaysay. Tusaale haddii aynu soo qaadanno magacyadii xayawaanada iyo shakhsiyaadkii uu la jeeday qoraagu. Jones waa mulkiilaha beerta waxaanu matalayaa xukunkii saaristiga ee markaa Ruushka ka talinayay, kaasoo ahaa mid dabeecad xun oo beerta meel xun ku waday. Duqii Major isaguna waa doofaar matalaya Lenin, kaasoo ahaa kii la yimid afkaartii kacdoonka, laakiin kacdoonka ka hor geeriyooday. Snowball isna waa doofaar matalaya Leo Trotsky, kaasoo isaguna ahaa mid qorshayaal waaweyn u hayay beerta, laakiin saaxadii siyaasadda laga musaafiriyay ka hor intaanu qorshayaasha ficil u bedelin. Napoleon oo isna ah doofaar matalaya Joseph Stalin, hogaamiye kale talisa oo si nacasnimo leh uga fikirayn waayo xukunka. Inkastoo meelaha qaar uu yara horumariyay, laakiin horumarkaasi noqday mid aanay ka faa'iidin shacabkii Ruushku amaba xayawaanadii beertu. Boxer oo isna ah faras matalaya dabaqada dadka shaqaalaha ee markasta u maleeya in hogaamiyahooda saxsan yahay. Squealer isna waa doofaar matalaya warbaahintii Ruushka oo uu Stalin propaganda ahaan u adeegsanayay. haddii aynu intaa xagga kaga nimaadno, iminkana waxaynu wax yar ka taaban doonaa sheekada buuggan iyo siday u socoto. Jones wuxuu ahaa nin beeralaya oo iska caadiya, laakiin xayawaanada beertaas ku noolaa ayaa ahaa qaar ku nool dulmi iyo tacadiyo badan, waxayna bilaabeen inay caloolxumo iyo cadho u qaadaan ninkii Jones. iyadoo xaaladdu sidaas tahay ayuu mid ka mid ah xayawaanadii oo la odhan jiray Major duqna ahaa habeenada ka mid a meel isugu yeedhay xayawaanadii. wuxuu bilaabay inuu uga sheekeeyo adduun ay ku nool yihiin xayawaano xor ah oo aan maamul bini'aadam lahayn. wuxuu sidoo kale bilaabay inuu xamaasad iyo cadho geliyo, gaar ahaan markii uu sheegay inay noloshoodu gaaban tahay oo ay ku nool yihiin rafaad iyo dhib, ugu dambayntiina la gowrici doono. muddo kadib waxaa geeriyooday duqii Major, khudbadiisiina waxay isku beddeshay mabda' loo yaqaano animalism. shuruucdiisa ka ugu muhiimsanna wuxuu ahaa wax kastoo laba lug ku socdaa waa cadow, wax kastoo afar lug ku socdaana waa saaxiib, iyo dhowr sharci oo kale. maalmihii way socdeen, maalmaha ka midana waxaa dhacday inuu ninkii Jones ilaabay inuu xayawaanadii cuntadoodii siiyo. arrinkaasina wuxuu sabab u noqday inuu kiciyo kacdoonkii xayawaanada, sidaasaanay xayawaanadii kaga eriyeen ninkii Jones beertiisii. siday gebi ahaanba beertu gacantooda u gasho, hoggaankana ay qabtaan qaar ka mida doofaaradii oo ay horkacayaan Napoleon iyo Snowball. kadib markii ay xayawaanadii isku raaceen inay doofaaradaasi hoggaanka u qabtaan iyagoo u malaynaya inay doofaaradaasi yihiin kuwa ugu caqliga badan. muddo yar kadib kacdoonkii waxaa bilaabantay in mid ka mid a hogaamiyeyaashii kacdoonka oo ahaa Napoleon uu damac ka galo qabashada xukunka. wuxuu ogaaday inuu u baahan yahay mid isaga xayawaanada kale ka dhisa oo u ammaana, waxaanu xilkaas u magacaabay doofaar kale oo la yidhaahdo Squealer siduu isaga u difaaco xayawaanada kalena ugu buunbuuniyo. muddo kadib khilaaf ayaa ka dhex dhashay Snowball iyo Napoleon oo labaduba ahaa hogaamiyaashii ugu sarreeyay kacaanka. iyadoo ay sidaas tahay ayuu Napoleon dhagar u maleegay Snowball, wuxuuna ku tilmaamay khaayin bini'aadamka la saaxiib ah oo u shaqeeya. waxaanu isku magacaabay boqorkii beerta, xilalkii ugu muhiimsanaana wuxuu u magacaabay doofaaradii kale. cid kastoo ka mid ahayd kacdoonka, kuwaas oo ahaa kuwii aasaasay shuruucdii animalism, waxay bilaabeen in iyaga laftoodu ay buriyaan shuruucdaasi. halkaas ayayna ka sii soconayaan dhacdooyinka xiisaha badan ee la yaabka leh. qodobka koowaad, xitaa haddii ay siyaasiyiinta qaari u muuqdaan inay yihiin qaar caqli badan, ha u malaynin inay adiga waxa kuu fiican kuu qaban doonaan. xayawaanadii beerta ku noolaa waxay doorteen doofaaradii si iyagu u hoggaamiyaan, oo caqli badni ayay ku tuhmayeen. laakiin doofaaradu judhii ay ogaadeen inay xayawaanadu amarkooda qaadanayaan iyagoo aan ka fikirin, waxay bilaabeen inay farxumeeyaan awooddoodii.
sida faraskii boxer oo mar walba ku celcelin jiray Napoleon markasta uu saxsan yahay. Waxyaabaha ugu liitan waxa ka mid ah inaad cid kasta iska aaminto oo rumaysato. Qodobka labaad, daacadnimada indhaha leh waa sababaha ugu waaweyn ee maskax meedhida. haddii aad sida ugu habboon been u sheegto kadibna aad ku celiso beentaadaas, aakhirka waa la rumaysan doonaa. qodobka saddexaad, miidiyaha iyo warbaahintu waa qalabo awood badan kuwaas oo saameyn kara aragtida bulshada. haddii aan propagandada la iska qaban oo la rumaysto kaliya taa awoodda hogaamiyuunbaa sii korodha. qodobka afraad ee ugu dambeeya, dib u qorista taariikhda iyo been abuurku waa waxyaabaha ummadaha lagu baabi'iyo. muuqaalka maanta intaasu noogu eegyahay. haddii uu ku cajabiyey like saar, haddii aad ka faa'iideyna asxaabtaada la sii wadaag si iyaguna u faa'iidaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.